madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ka tirsan dowladdiisa ayaa galinkii dambe ee maanta gaadhay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tagista madaxweynaha ee magaalada Baydhabo kadib ayaa baraha bulshada waxaa lagu faafiyay muuqaallo garoonka ah oo laga maqlayo dhawaaq lagu sheegay inay yihiin hubiyaal lagu soo tuuray garoonka. Warbaahintu si ay u xaqiijiso warkan waxay la hadashay laba qof oo garoonka joogay xilli ay soo caga dhiganaysay diyaaradda madaxweynaha. midkood waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed halka ka kalena uu yahay suxufi madax bannaan. Labaduba waxay sheegeen in laba hoobiye ay ku dhaceen xayndaabka uu garoonku ku yaalo. Labada hoobiye ayaa midkood wuxuu soo dhacay markii diyaaradda madaxweynuhu ay caga dhigatay garoonka, halka ka kale uu soo dhacay markii madaxweynuhu istaagay halka uu salaanta kaga qaadanayo cutubyo ka tirsan militariga Soomaaliya. Hoobiyaha koowaad ayaa ku dhacay meel u dhow halka diyaaraddu ay taagnayd oo aan ka fogeyn qiyaastii 200 mitir sida mas'uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed warbaahinta u sheegay. Madaxweynaha ayaa si caadi ah u qaatay salaanta sharafta ciidamada isagoo markii dambe si nabad garoonka lagaga galbiyay isaga iyo wafdigiisa. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka hoobiyaasha ee lagu qaaday garoonka Baydhabo xilli uu ka degayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.